gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geelle ayaa magaalada Burco kulan kula yeeshay kontonkii qof ee ku guuleystay imtixaan ay u fadhiisteen 328 shaqadoon oo dhalinyaro ah. gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salebaan Dirir iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo madasha ka hadlay ayaa hambalyo iyo boogaadin u diray dhalinyaradan ku guuleysatay imtixaankani. kontonkiina soo baxay inaad tihiin qof ma tiidin nimanka waa kontonkii gobolka Togdheer masilayay hadhowto marka lagu qoro masalan degmada Oodweyn oo kale ama gobolka Daadmareer oo kale ama meel kale u dhiganta lagu qoro ama qoyta lagu qoro ha oran kuma intala gelineen in halka aan tago burcada wada qaadi maysan filaya marka farxad bay noo tahay waa idin tahneedeynayna soo dhawaada ardayda guuleysatay waan hambalyeynaya maanta laga bilaabo waxaad noqoteen shaqaale kamid ah shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer waxa la idin ka rabaa wax kasta oo qof shaqaale oo cusub looga baahan yahay in qof waliba meeshii la geeyay hay'adda la geeyay uu la tago dadaalkii dhalinyaranimo dadaalkii aqooneed maskaxdii fiicneed oo halka ku soo gaaray si uu uga faa'iideeyo gobolkiisa iyo mujtamaciisa. Sharmaake Axmed Maxamed Geelle gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyay dhalinyaradan ku guuleysatay imtixaankii ay qaaday hay'adda shaqaaluhu waxaanu xusay in shaqo kasta oo ka banaanaata qarankan loo mari doono hanaan hufan. dhammaan guuleystayaasha qiimaha badan ee maanta saaka halkan fadhiya saaka waxaad hesheen digreetada ugu qiimaha badan ee qof lagu magacaabo digreetooyinka kale oo dhan markii la doonaa lagaala noqon ama waa wuxuun si kale kugu soo galay laakiin inaad qalinkaaga ku soo baxdo maanta halka adiga iyo waalidka magacaaga ku dhagan yahay waa digreeto runtii qiimo badan iyo xasuus noloshaada ku reebi doonta inta dawladda u shaqeynayso waxay noqon doontaa mid xasuus iyo runtii kugu dhalisay inaad adiguna ummadaada haddaad cadaalad ku soo baxday adiguna cadaalad ugu shaqeyso oo dadkaagu ku dhaxeeyaan oo aad nin nasiib ku riixin laakiin aad adeeg wanaagsan ummadda siiso waajibkii dawladnimadu way ka soo baxday waajibka adigu kugu soo wareegaya oo inaad adeeg fiican ummadda siiso dhamaanteen waxaynu noqonaynaa adeegayaasha gobolka Togdheer waxa la doonayaa in dhexda loo xidho in goboladu dadaalka iyo runtii horumarka iyo aqoonyahanku inuu gobolka ku xasilo oo gobolada Soomaaliland dhamaantood wada iftiimaan si aanu muwaadinka gobolka nool ugu baahanayno meel kale u safro si uu adeegii dawladnimada u soo helo muwaadiniinta maanta ku guuleystay halkan waxay noqon doonaan adeegayaal ka shaqeeya oo u shaqeeya gobolka Togdheer iyo hadii loo baado xarumaha dawladda. ugu dambeyn qaar ka mid ah dhalinyaradii shaqadoonka ahayd ee ku guuleysatay imtixaankani oo Bulsha TV la hadlay ayaa dareenkooda ka waramay. dareenkaygu alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan u faraxsanahay wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan dareemayaa system cadaaladeed nidaam dawladeed iyo jawi reereena. alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta cadaaladu shaqeyso oo qarankii iyo maamul daadajintii intay gobolkayga noogu timaadoon arjiyadeeda ku xareysano imtixaanka ku gallo alxamdulillaah rabbil caalamiin waliba ka hawl gallo oo anagoo walaalo si cadaaliya aanu imtixaan ugu fadhiisano ugu soo baxno aad baan ugu faraxsanahay hay'adda shaqaalaha ugu mahad celinayay guud ahaan dawladda. maanta farxad weyn bay tahay una tahay dhalinyarada gobolka Togdheer imtixaankan hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ka qaaday ardada la sheegay 308 ah waxay u muuqataa in la gaaray xilligii lagu qiimeyn lahaa qof kasta iyo meeradkiisa iyo aqoontiisa iyo kaalintii waxbarashadiisu ay gaarsiisan tahay. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.